wariyaha caanka ah ee Soomaaliyeed Maxamuud Xasan Xaaji Cumar oo horey uga soo shaqeeyay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da isla markaasna ay soo wada shaqeeyeen Axmed Ismaaciil Samatar oo dhawaan muujiyay inuu la safan yahay maamulka Hargeysa xilli uu booqday jiidaha gobolka Sool ayaa ka warbixiyay xilliga ay soo wada shaqeeyeen Axmed Ismaaciil Samatar iyo aqoonta uu leeyahay waxaana uu sheegay inuu Puntland ku dhex koray laakiin uu ku caasiyay oo hadda ka shaqeynaya dhibaatada dadka Puntland ninkan la hadal haye Axmed Ismaaciil Samatar horta ninka markii hore waxa soo kaayo horeysay 1967 BBC-da ayaa looga yeeray shaqo ka bilaabay aniguna markaa BBC-dan ka shaqeynayay markii dambe 70kii aan ku noqday Soomaaliya isna wuxuu ku noqday Soomaaliya radio Muqdisho aan labadooda ka wada shaqeynayna shaqada waxaa noqoray Maxamed Abshir Walda Allah u naxariistay laakiin waxaanu ku kala duwaneen Maxamed Abshir Walda isagu wiil buu ka dhigtay gurigiisa ku han jiro tacab buu galiyay aad buu ugu dadaalay inkastoo markii dambe uu ku ballan furay shaqada BBC-na isaga u qaban qaabiyay markii dambena tagistu Mareykan tagay isaga u qaban qaabiyay wariyii hore ee BBC-da Maxamuud Xasan Xaaji Cumar ayaa ka hadlay aqoonta uu leeyahay Axmed Ismaaciil Samatar waxaana uu sheegay inuu yahay qof aan mabda' lahayn isla markaasna maalinba meeshuu dantiisa ka aada isagoo ku amaanay baarlamaanka Soomaaliya inay fahmeen markuu isku soo sharaxay madaxweynaha Soomaaliya sanadkii 2012 haddaan ka warramo Axmed Ismaaciil Samatar shakhsiyaadkiisa waxaan ku aqaanaa niman isku kalsooneen عقدات قبح و إسكا أبرتشونيسا ومعلم بعض ماشي إلى هذا دم باكو وجرت عادة لين عن كل حدين تدكو كذا شيء يغيركو كذا شيء مدنا عن كل حدين بانو أقارنا وحنو أقارنا نمان مبدأ على حين معلم تام ماشي الدنيا كجشو مو يعني wuxuu aaminsan yahay haba yaraatay ayna jirin ayaa ninka ku aqaana nin shakhsiyad leh ma aha Soomaalinimadana ma aaminsana hatta kuwan uu la joogo Soomaalinimadooda ma aaminsana 70-nadii iyo 80-nadii BBC-da markuu wuxuu ku sheekeyn jiray in Soomaaliya ayna dal noqon karinba way ku wanaagsan tahay Ethiopia in la siiyo waxaasuu ku murma jiray inaan Soomaaliya badal noqon karin marka ninkan waxaan ku aqaanaa nin wuxuu aaminsan yahay habata yaraatee dhinac kasta ayna jirin ugu dambeyntii Maxamuud Xasan Xaaji Cumar waxa uu sheegay in dhawaan marka Puntland ay maamulka Soomaaliyeedka ka saartay dhulkeeda la arki doono Axmed Ismaaciil Samatar isagoo Puntland isu soo dhiibay kuwan Hargeysa joogun baa u diray intay $1,000 u dhiibay bay dhaaheen 50 neef ariya ciidankaas Soomaaliland u iibi isaga wax ka khuseeya tukaraq iyo laascaanood midna ma jirto waxaan muujinaysaa shakhsiyad xumadiisa uu ku tagay tukaraq isagu baana ku soo noqonaysaa dadka meesha degan iyo dadka meesha weligood deganaa waxa Axmed Ismaaciil Samatar uu ku saameyn oo ku yeelanaya ma jirto meesha waa lagu kala adkaanaya dagaal baana dhacaya waana lagu kala adkaanaya waxaana ku adkaanaya dadkii meesha deganaa weligood deganaa meesha lahaa marka waxa hubaala marka meesha lagu kala adkaado Axmed Ismaaciil Samatar inuu Garowe iska dhiibi doono shakiga ma jiro waana ogaan doontaan inuu Garowe iska dhiibi doono ama xamartii uu ka soo cararay dib ugu noqon doono labadaas un bay mid noqonaysaa Cabdi Xasan Faarax Puntland TV Garowe